وعنا wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan halkani waa marqaati TV ku soo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka waa 26ka bisha May sanadka 2023 waana maalin jimcaha qodobada daawadayaal barnaamijka qaybtan aynu ku eegi doono waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ololaha doorashada Turkiga oo meel gabagaba ah maraya waxaan idin haynaa mucaaradka isku dayaya in ay niyada u dhisaan taageerayaashooda iyo dacwad ay mucaaradka ka gudbiyeen madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waxa dacwadan ay ku saabsan tahay iyo xogo dheeraad ah ayaan idin haynaa marka la soo dhawaada daawadadan nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir muuqaalka noo shargarayso dad badan u gaara mahadsanid barnaamijka ayaynu gudagaleynaa hana iloobin gabagabada inaad aragtidaada qaybta hoose ee committee-ga aad ku reebto aynu ku bilownay waxa meel gabagaba ah maraya ololaha doorashada wadankan Turkiga iyada oo maalinta Axadda oo ay ka harsan tahay maalinta Berita oo kaliya loo dareeri doono doorashada oo dadweynaha codkooda ay dhiiban doonaan dhammaan waxa heegan la geliyay ciidamada ammaanka sidoo kalena waxa la isku diyaariyay in codeynta loo diyaar garoobo iyada oo maalinta Berita ahna ay ku eg tahay ololaha doorashada oo la soo xiri doono habeen dambe fiidkii ilaa hadda ololaha doorashada si wanaagsan ayuu u socdaa waxaana muuqanaysa in mucaaradka isku dayayaan inay markan niyada u dejiyaan taageerayaashooda mucaaradku waxa ay bilaabeen sida wararku tilmaamaya in ay taageerayaashooda u sheegaan in aysan niyad jabin oo wixii dhacay wareegii koobaad ay ahaayeen wax sinama filaan ku yimid laakiin se wareega labaad rajada ay aad u wanaagsan tahay madaxweyne Erdogan oo meesha ka bixi doono iyaga ay guuleysan doonaan codadkooda aysan weecinin oo ay geesinimadu ay tahay in yar oo cagaha dhulka lagu hayo waa sida mucaaradku ay sheegayaan waxaana sidoo kale ay ka dhaadhicinayaan dadka aadka u taageersan in hal kamid ah aanu ka tagin oo inta dhimanna ay si wadajir ah u dhameystiraan sidoo kale ololahooda ayay wili wadaan wili waxay ku ololeynayaan oo aanay ka qoosan mucaaradka in Suuriyaanka ay ka saari doonaan wadanka marka ay guuleystaan sidoo kalena xitaa aan loo qaban doonin maalmo dheeraada oo guusha markii ay hore ka dhacdo oo xukunka ay la wareegaan isla markiiba daabulida iyo qabashada iyo xariga iyo Suuriyaanka dadka ah ay ku bilaabi doonaan taasoo ay ku doonayaan bal inay ku dejistaan oo ay ku helaan codadka dhalinyarada iyo dadka wadaniyiinta ah laakiinse wadaniyiinta kaliya arinta kama eegayaan Suuriyan la buriye waxay ka eegayaan xaaladda wadanka halka uu u jihaysan doono mucaaradka dii ay guuleystaan waxa xigi doona oo la qaban doono kaliya ma fiirinayaan in dadka ajaanibta la raafo ama si awooda wadanka looga saaro laakiin waxa la leeyahay wadaniyiintu waxa ay doonayaan iyagu wadankooda inaanu hoos uga dhicin meesha hadda la joogo sidoo kalena wadanka aan loo gacan gelin reer galbeed qaxootigan kulli wadanka uma aysan dhalan oo markay ahaataba waa la celin doonaaye oo xitaa madaxweyne Erdogan ayaaba sheegay laakiinse waxay u muuqataa marka codadka wadaniyiinta inay aadayaan dhanka madaxweyne Erdogan sababta ay tahay waxay u baahan yihiin oo dhan iyo ka sii badanba xisbiga akbarta ayaa u haya tusaale Suuriyaanka hala saaro xisbiga diyaar ayuu leeyahay madaxweynaha waa uu sheegay 1 milyan ayaa la saari doonaa marka ugu horeysa oo loo diyaarinayay meeshii ay degi lahaayeen labo in wadanka laga ilaaliyo gacmo shisheeye in wadanka argagixisada laga qabto waxyaabaha ay doonayaan wadaniyiintu waa taas sidaas darteed codadka xaggaas ay aadi doonaan mucaaradka marka waxa ay sameynayaan geed walba iyo darbi walba madaxa ay ku garaacayaan si ay bal guul u gaaraan waayo markii ugu dambeysay ay maraysaa rajadooda geesta kale ninkan ay ishayaan madaxweynaha Turkiga lagu magacaabo Kemal Kılıçdaroğlu ayaa waxa la leeyahay dacwad ayuu ka gudbiyay madaxweyne Erdogan wuxuuna ku eedeeyay in uu sii daayay video ololihiisa ku jira oo lagu xiriirinayo mintidiinta Kurdiyiinta dacwad ayaan ka gudbinay si loogu qabsado video ben abuur ah ayuu yiri qareenka Kemal Kılıçdaroğlu Mr. Kılıçdaroğlu waxa uu in ku dhow 5 dhibcood ka dambeeyay madaxweyne Erdogan doorashadii dhacday 14 May laakiinse wali waxa la aaminsan yahay in uu ciriiri gelin karo Erdogan isagoo oo noqday qofka kaliya ee aadka ugu soo dhawaaday 20 sano ee Erdogan talada u hayay keenayna in lagu dhawaaqo doorashadii ugu horeysay ee ku celiska ah kana dhacdo wadanka Turkiga markan waxa uu Kılıçdaroğlu dalbanayaa in madaxweyne Erdogan lagu ganaaxo lacag dhan 1 milyan oo lira oo u dhiganta 50,000 oo
dollar. lacagtaasi waxa uu sheegay haddii loo xukumo in uu ugu deeqi doono sanduuqa dhaqaalaha loogu ururiyo waxbarashada carruurta ay dhaleen askarta Turkiga ee geeriyooday. Erdogan ayaa si isdaba joog ah wuxuu ololihiisa uga sii daynayay video lagu xiriirinayo Kılıçdaroğlu taliyaha ciidanka kooxda Kurdiyiinta PKK. Videoga ayaa gudbinaya muuqaalka taliyahan oo ay u muuqato in uu taageerayo ololaha mucaaradka. PKK waxa ay Turkiga iyo saaxiibadiisa galbeedka uga diiwaan gashantahay inuu yahay urur argagixiso ah, waxayna 10 sano waday dagaal galaaftay nolosha 10,000 oo qof. Erdogan ayaa toddobaadkan waxa uu qirtay in videoga tifaftir lagu sameeyay oo uusan ahayn kii mucaaradka ay ololaha ku galeen. qareenka Kılıçdaroğlu waxa uu ku andacoonayaa in Erdogan uu ku xadgudbay xeerka anshaxa, laakiinse marka dacwadda laga yimaado wararku waxay sheegayaan in mucaaradku ay taageero ka haystaan axsaab Kurdiyiin inkastoo ay qaar kala boodeen. taasi waxay keenaysaa in ay soo baxaan kooxo siyaasadeed oo aan markaasi dhanan raacsanayn, waxayna culeys ku noqon kartaa Kemal Kılıçdaroğlu oo ugu yaraan taageero 15% ka haystay Kurdiyiinta. Axadda ayuu labada ninba dhex mari doonaa loolankan adag ee doorashada. marka sida hadda warbixinta ka muuqata, Kemal Kılıçdaroğlu 15% oo kamid codadkii oo hore u haystay hadda meel dhexe ayay soo istaageen. yacni ama waxay dooran doonaan Erdogan ama waxay dooran doonaan dhanka ninka la yiraahdo Kemal Kılıçdaroğlu. codadkaasi marka la fiiriyo waa kuwii dhanka Kurdiyiinta oo hadda aad yacni Kemal ay isaga hor yimaadeen. Kurdiyiintu laftoodu ma rabaan Erdogan inay codkooda siiyaan, sidoo kalena ma doonayaan dhanka mucaaradka oo hadda khilaaf ayaa la leeyahay waa uu soo baxay. haddii ay dhacdo marka codadkan dhexe waxay dhici kartaa hal arin oo aad loo saadaalinayo, maadaama aysan rabin Erdogan inay mucaaradka iska siiyaan iyagoo dani ayna ugu jirin. waa suuragal qaarkood inay mucaaradka ku xumeeyaan oo awooddaas Kurdiyiinta tusaan oo dhinacan kale ay siiyaan, halka qaarkoodna ayba ka gaabsadaan oo codadkan aysan sidii loogu talagalay u bixin, yacni codad khasaaro kale laga dhigo. si walba marka labada kale ah in codadka haddii la khasaariyo ama Erdogan loo codayo mucaaradka dhabarjab weyn ayay ku tahay. tusaale haddii marka la iska dhaafo oo aysan Kurdiyiintan codadkooda khasaariyaan oo meeshaasi codad laga helin, Kılıçdaroğlu waxa uu hoos u dhici doonaa 15%. waana arin dhibaato weyn ku noqon doonta howshii socotay oo waday, waayo hadda ayaa la leeyahay waxa uu weysan yahay ama uu la yahayba codadkii uu hore u haystay oo in badan oo iyaga kamid ah ay sheegeen oo ay cadeeyeen in Erdogan ay u codeyn doonaan oo aysan doonaynin in ay siiyaan hogaamiyaha mucaaradka oo ay ku tilmaameen inuu yahay shakhsi isagu aan danaynaynin dadka iyo dalka Turkiga ee doonaya xilkaas, sidoo kalena doonaya in wadankii uu u gacan geliyo ajaanib. haddaba daawade wixii ku soo kordhay doorashada dib ayaan idin kala soo socodsiin doonaa qaybtan barnaamijkeena falanqeynta oo idinkaga imaanaya Markhaati TV wanaagta kan xiga intaan ku kulmayno nabadgelyo.